السلام عليكم ورحمة الله دلهانتي بداود يا ملك استوى ضعفها عالم كجنو شينسي كستوى نوضع ولا سوا وعنه ونكس هذي تأكلن كأجوريات صوبغة كنا كفرح غاني يتفضل هاي ما من سكريب تناصر تصير شر جري صولك تناصر مركز نحرك هذا الكسب ودنا فضل هاي ما من كمان تعافي ما قبل ويحي فكر كاجا أن نقول سوى دكتور أيّا ويحي عصب نجوا رئيسه واحد ما غشنا كثير سو arrintii sida weyn baraha bulshadu haystay maalmihii la soo dhaafay Sharmaboy iyo xarigiis Sharmaboy iyo hooyadii ayaa xagga TikTok-ka video gaaban ku soo bandhigay waliba uu ku helay xorriyadiisii Sharmaboy sidaad wada aragteen ama video-ga ama hordhaca soo wada daawateen Sharmaboy xorriyadiisii dib u helay waa wax Ilaahay loogu mahadiyo fanaan Soomaaliyeed oo in muddo ku xunaa garoowe inuu dib xorriyadiisa u helo haddaba dad iyo badan ayaa is weydiinaya maxaa Sharmaboy lagu xiray maxaa siinta asoo loo sii deyn waayay haddaba Sharmaboy ayaa ahayd meel in yar u jirtay garoowe markii uu shil ku galay halkaas oo ay gabar Soomaaliyeed oo walaashiya ay ku geeriyootay gaariga uu waday haddaba Sharmaboy iyo video-gii ayaan doonaynaa inay kala baxo waxaad u aragtay video-ga Sharmaboy iyo hooyadii wajiyadooda laga dheehanayo farxad hooyo wiilkeedii loo sii daayay wad garanaysaa wajigeeda iyo farxadeeda ama dareenka ay ka falcelinayso sida uu yahay Sharmaboy ayaa waa garanaysaa qof mabxuusa oo dibadda loo sii daayay ama xorriyadiisii loo sii daayay jeelka iyo ciriirigana laga sii daayay isna dareenkiisa iyo waliba falcelintiisa haddaba Sharmaboy ayaan ilaa hadda ka hadlin xarigiisa iyo wayaha xorriyadiisa uu ku helay haddaba wax laga yaabaa ama hadii Ilaahay ka dhigo uu soo geli doonaa baraha bulshada isagoo oo sheegay siyaabihii wax u dhaceen iyo waliba siyaabihii lagu xiray ama siyaabihii lagu sii daayayba haddaba waxa uu haystaa xorriyadiisii waxaana uu dhaxmarayaa garoowe isagoo cidina haysan haddaba baraha bulshada ayaa dadyow kala duwan ayaa siyaabo khaldan isla dhaxmaraya xariga Sharmaboy iyo siyaabihii lagu xiray haddaba Sharmaboy ilaa hadda afkiisa waxba lagama hayo balse waxa la xaqiijinayaa wararka soo sheegayaan inuu xorriyadiisii helay balse waxa lagu xirana ay ahayd shilkii gaariga ee uu galay haddaba dad iyo badan ayaa is weydiinaya muxuu garoowe ka doonay haddaba garoowe waxa uu bandhig showey u ka qabanaya halkaas oo gabadh walaashii gaari uu waday uu ku dhacay halkaan ay ku geeriyootay halkaas oo lagu xiray haddaba markii labada reerkii heshiiyeen ayaa la sii daayay xorriyadiisina uu dib u helay haddaba wax masiibooyin fara badan ayaa isu raacay iyadoo YouTube-kiisii hawada laga saaray inkastoo imika loo soo celiyay iyo uu shil galay oo gabadh walaashiya gaariga uu waday ay ku geeriyootay waxyaabo fara badan ayaa isu raacay fanaanka waayo waxa uu ahaa qof in yar ku jiray baraha bulshada oo adduunka oo dhan wada gaaray hal mar wuxuu qorrax hal mar soo baxday oo wada iftiimisay dhulka oo dhan haddaba Soomaalidu waxa ay tidhaahdaa qorrax iyo dayaxtoona gacanta laguma qarin karo Sharmaboy haddii uu caan yahay qofku oo waliba dadka kasbado uu talentina leeyahay qofna ma hor istaagi karo waayo waxyaabo kale waa la soo taagay laakiin talentiga qofka Ilaahay siiyo qofna kama qaadi karo waxa la yiri hibe eebe ku siiyay habeen ha iska qaadin qof bilaadanina waxba kama qaadi karo waayo waxa uu haystaa talent isaga oo gaar ah oo waliba dad yoga kala aan lahayn kuwaas oo ku kasbaday 100,000 ama 100 milyan aan iraahdee oo taageerayaashiisa waxa kuraasida iyo waliba dhulkaba looga kacay Sharmaboy marka muuqiisa la arko waa wiil dhalinyaro sida cadceed ugu soo baxay Soomaalida kana soo dhax muuqday kaasoo baraha bulshada ayaa ama yar si weyn u qabsaday halka ay 10 sano ama 12 sano ama 12 sano ku jireen ay la yaabeen 15 jirka ama 20 jirka aan iraahdee 5 bilood caanka ku noqday waxyaabaha ay taariikhdu ku xusi doonto Sharmaboy maalmo yar ayuu ku jiray baraha bulshada magaciisana waxa uu gaaray geyiga Soomaalida oo dhan
isagoo ka qaarad isku tallaabay sida roobka ama hilaaca baan idhaahdee Sharmaboy ayaan cimaamadiisa ciid haysan karin qofna aanu dhayalsan karin qof waliba oo Sharmaboy garanaya maanta waxa uu ku garanayaa inuu yahay qof u qalma halka uu maanta u taagan yahay balse Sharmaboy duco ayuu baahay maanta cid soo taagtay cid abaarto toona uma baahna waxa ku dhacay ilyow dad fara badan waayo dadka waxa isugu jira dad ishoodu ay aad u kulushahay haddaba Sharmaboy ayaa laga yaabaa maalmaha la soo dhaafay inuu si weyn uga soo hadlo arrimaha iyo waxyaabihii ku dhacay iyo wixii jeelka uu kala soo kulmayba haddaba ha ka degdegina arrintiisana waan ila soo soconsiin doonaa waxaanu ka codsanaa haddii tay kulanka ay ugu horeeyay soo boqoto channelka waxaanu ka codsanaa inaad subscribe noo saarto siina share geliso asxaabtaada la wadaagto like-tana saar sida asxaabka badan ay u sii daawadaan haddaad hore noola joogtayna aad iyo aad baad ugu maashaday daawashada fiidiyogan haddaba markastaba waxaad naga helaysaan warar xaqiiqada ku salaysan kuwaas oo aan ka soo xiganayno dad yowga aanu doonayn inaanu ka hadallo markastana waxa aanu jecelahay inaan wax xaqiiqada ku saabsan oo dhaqaniin iyo diiniyanba wanaagsan inaanu ka hadallo waliba beenta aanu iska fogeyno beentu wax wanaagsan ma aha akhriya iftiinka toona haddaba dad yowga ku tiri ku teenta la wadeegaya baraha bulshada iyo waxyaabaha sariya raad toona lahayn waxaanu leenahay ilaahay ka baqo oo wax walba hubsada oraahdeeda ayaa ah wixii cusub naga warayso waxaad maqashana ka fiirso haddaba dadyow ayaa jira siyaabo khaldan u soo gudbiya oo baraha bulshada iskaga jira kuwaana waxaan leenahay laga feejignaado oo laga digtoonaado dadyow badan ayaa baraha bulshada siyaabo khaldan wax u gelinaya kuwaas oo ku raadinaya caanimo ama fuyuus maalmihii la soo dhaafay baraha bulshada waxa haystay dadyow akhlaaqdooda iyo dhaqankooduba aad uga xumaanaysid marka aad aragto haddaba waxaanu leenahay dadka wanaagga jecel in ay mar walba xagga samaha isu ka haystaan oo ay xumaantana ka tagaan fiqtiga iyo xaasidnimadana ay iska dhaafaan qofka walaalkiisa inuu taageero heeshan qof Soomaaliya ma leh nin gaar ah ayaa iskale lacagta laga helana ninkaas ayaa laga qaataa balse inaan la xaasidin haddaba anigoo muumin aburaas waxaan idinkaga tagay intaynu kan mid ku kulmanaa assalaamu calaykum idilhaan